بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن دغيستيال كسو دباده برنامجka xulka ciyaaraha idaacada Himilo maalin talaada ah taariikhdan ay ku beegantahay 25ka bisha Febraayo sanada 2020 qodobada ciyaaraha barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah kooxda Horseed oo ka guul gaartay dhigooda Hegan iyo maanta oo la soo gabagabeyn doono wajiga koowaad ee horyaalka Soomaaliya Premier League sheekooyin dheeri ah ayaad barnaamijka ku maqli doontaa oo ku saabsan kubadda cagta Soomaaliya kooxda Liverpool oo qarka u saaran ku guuleysiga BL-ka kadib guushii ay ka gaareen kooxda West Ham 8 sano kadib Chelsea ay Bayern Munich oo caawa fooda zari doona kooxda Barcelona u safri doonta magaalada Napoli Messi waxa uu socdaa kooxda Napoli qof walibana dabcan waxa uu ogaan karaa wax ka dhici kara kubadda cagta sidaasi waxaa yiri Jared BK Raheem Sterling oo ka dhawaajiyay kooxda ay taageerto gabadhiisa yar sidoo kale qodobada barnaamijka waxaa kamid ah waa ka xidiga uu loolanka adag kala kulmi doono duufaanta Borussia Dortmund ninka lagu magacaabo Haaland Paul Pogba oo qirtay in Liverpool aan sanadkan laga xigin horyaalka BL-ka Miyu Jordan Sancho ka tagaya kooxda Borussia Dortmund barnaamijka aad ku maqli doontaan faahfaahinta qodobkan tababaraha Barcelona oo sheegay in ciyaartooydiisa aysan wali ama ay wali la nool yihiin jabkii Champions League ee ka soo gaaray kooxaha Roma iyo Liverpool Bernardo Silva oo qirtay in uu jeclaan lahaa ka garab ciyaarista Lionel Messi sheekooyinka aad ku maqli doontaan barnaamijka intuu hawada ku jiro waxa idin waramaya Maxamed Xasan farsamadu waa Tamjil xana way soo saartay soo dhawaada saaxiib yaal tahay saaxiib yaal Himil FM 102.5 megahertz qaybihii hore ee barnaamijkana waynu ku guda jirnaa Soomaali Premier League kulamaha ka dhacay ama kulan ayaa ka dhacay maalnimadii shalay oo u dhaxeeyay kooxaha Hegan iyo sidoo kale nadiga lagu magacaabo Horseed galabtana waxaa dabcan la soo gabagabeyn doonaa horyaalka Soomaali Premier League qaybtiisa koowaad sheekooyinkan waxaa la socday taariikh dabcan hadii aad faahfaahin guud naga siiso kulankii shalay u dhaxeeyay kooxaha Hegan iyo Horseed sidoo kale kulanka galabta ka dhici doona Engineer Yariso Stadium owen aad ma santahay kulankii derbi ciidan ee shalay Hegan iyo Horseed dhexmaray wuxuu ahaa kulan weyn oo xiiso badan oo daawadayaal fara badan ay goobjoog ahayn si lamid ah kooxaha kale ee loolanka horyaalka ku jira ciyaartooyda iyo maamulkooda ay daawanayeen wuxuu ahaa kulan si gaar ah ay u xifaaltamaan labadana kooxood maadaama xir ahaan ay darisiin si lamid ah military iyo police ay hoos tagaan qaybtii koowaad ee ciyaartu waxaa lagu kala maray marka la fiiriyo eber oo labada kooxood bandhig wanaagsan ay sameeyeen kubadda waxaa la soo bandhigay weerar celisa koox walba iyadoo wax difaacanaysa ay doonaysay inay weerar qaado 45 daqiiqo ugu horeeyay wax waa la iska qaadi waayay 15 daqiiqo la soo laabtay markii la soo nastay dib loo soo laabtay qaybta labaad ee ciyaarta labada kooxood bedel xoogan ay sameeyeen Cabdijoon wuxuu sameeyay bedel fara badan oo uu gool ku tiigsanayay si lamid ah Mahad Meykon isagana ciyaartooy fara badan oo bedel ku keenay qaarkood uu saaray ciyaartu 85 daqiiqo markay mareysay gool heleen ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Horseed laacibka lambarka 17aad ee Hanad ayaana gool dhaliyay taasoo ka dhigtay in gool iyo eber kaga adkaadaan Hegan Horseed ayaana 3 dhibcood nadiif ah halka ku heshay marka shalay waa la garaacay ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Hegan waxaa xusid mudan oo in Mahad Meykon sanadkan uu ku cusub yahay leelista ama hogaaminta macalinimo ee kooxda kubadda cagta Hegan ilaa haddana ma jirto koox weyn ama macalin weyn oo garaacay marka la fiiriyo kulamadii uu ciyaaray 9 kulan ay wajiga koowaad ee horyaalka Soomaali Premier League ciyaaray Mahad Meykon iyo kooxdiisa Hegan wuxuuna urursaday 14 dhibcood kooxaha waaweyn marka la fiiriyo afarta koox ee waaweyn hal dhibic ayuu ka helay Elman oo gool la galay si lamid ah Muqdisho Tikalaab gool dar 3 gool iyo eber kala kulmay sidoo kale Dekado 2 gool ka kulmay shalayna gool eber lagu badiyay marka kooxii waaweynaa sida Dekada Horseed MCC iyo Elman hal dhibic ayuu ka helay kaliya Elman oo bareej la galay marka waxaa moodaa in wali qaab ciyaareedkooda uu liito kooxda kubadda cagta Hegan inkastoo loolanka horyaalka wali uu furan yahay
haddana kooxihii waaweynaa wajiga gabax ayay kala kulmayaan shalay guuldaradii ku dhacdana waxay ahayd mahadmeycon guuldaradii saddexaad oo kooxaha waaweyn uu kala kulmo marka la fiiriyo kulamadii sagaalka ahaa ee uu ciyaaray marka wejiga koowaad shalay kulankooda ugu dambeeyey labada kooxood bay ciyaareen 14 dhibcood ay leeyihiin Hegan halka horseed hadda ay gaareen 18 dhibcood hore waxay u lahaayeen 15 dhibcood shalay guushood marka lagu daro waxay tageen 18 dhibcood Elman ay isku wada dhibco yihiin inkastoo horyaalka Somali Premier League ay dekada 20 dhibcood ka hogaaminayso farqiga u dhaxeeya dekada horseed iyo Elman uu yahay 2 dhibcood marka shalay Hegan waa laga adkaaday waxyaabihii cajiibka ahaa shalay ciyaarta laga soo calaamadeeyay waxaa qayb ka ahaa in laacibka la yiraahdo hanad oo goolka dhaliyay isna uu soo buujiyay fursad fiican uu safka koowaad ee kooxda kubadda cagta ee horseed uu ka helay iyadoo Cabdijoon shalay ciyaartoy fara badan ay ka maqnaayeen sida Mayman Ibrahim Rasta kabtanka kooxda horseed iyo ciyaartoy fara badan oo uu ku jiro Mahad haddana waxaa fursad helay ciyaartoy kale oo shiiqay uu qayb ka yahay khadka dhac sidoo kale hanad oo goolka dhaliyay ayaa ku soo laabtay Noni Hashimi sidoo kale xasaasi ayaa isagoo kabtan ah kulankiisa ugu horeeyay tan iyo markii kabtanka labaad ee kooxda horseed laga dhigay guulka hogaamiyay marka shalay ciyaartii Hegan horseed xaalkiisa sida uu ahaa maanta oo talaada ah la soo gabagabeyn doona wajiga koowaad ee horyaalka Somali Premier League kulanka ugu dambeeyana waxaa ciyaari doona kooxaha kubadda cagta Raja iyo Jasiira Raja markaan fiirin 4 dhibcood ay leeyihiin waa 5 dhibcood ay leeyihiin dhammaan 8 kulan hore u soo ciyaareen kaalimaha dhexe ku jiraan marka la fiiriyo kaalinta toddobaad ay fadhisaa halka kooxda kubadda cagta ee Jasiira ay fadhiso kaalinta ugu hooseysay horyaalka Somali Premier League maadaama dhammaan 8 kulan ay soo ciyaartay kaliya ay heshay 3 dhibcood oo 3 kulan ay bareejo gashay 5 kulan waa laga soo badiyay marka kulankooda sagaalaad ay ciyaarayaan macalinka kooxda Jasiira ninka la yiraahdo Cabdi Bootan wuxuu raadinayaa guushiisa ugu horeeyay ee horyaalka Somali Premier League tan iyo markii xilaareedkan ee la baasay marka ciyaaraha horyaalka Somali Premier League waa sida shalay kulan Serie B uu jiray madbacada iyo kooxda kubadda cagta saxafina gool iyo gool ay ku kala tageen wuxuu noqday kulankii ugu horeeyay tan iyo markii la bilaabay sanadkan horyaalka heerka labaad Serie B la baastay ee bareejo ku soo ilaaday waad masantahay daariq oo dabcan la socodsiinayay sheekooyinka ku saabsan kulamadii kulankii shalay sidoo kale kulanka galabta ka dhici doona Engineer Yiliso Stadium galabtana gabi ahaan la soo gabagabeyn doono wajiga koowaad ee Somali Premier League halkaas aynu kaga gudubno saaxiib yaal waa tahay saaxiib yaal markaan haddii aan ku bilaabno kulankii xalay u dhaxeeyay kooxaha Liverpool sidoo kale kooxda lagu magacaabo West Ham United kooxda Liverpool ayaa qarka u saaran ku guuleysiga horyaalka PL-ka kadib guushii ay xalay gaareen qaybta koowaad ciyaartan ayaa lagu kala nastay barbar 2 gool iyo 2 ahi oo ay dabcan ama 1 gool iyo 1 gool oo ay labada koox dabcan isku mar waayeen markii dib la isugu soo laabtayna Liverpool ayaa dabcan halkaasi ka sii bilaawday sheekada ku dhisan guulaheeda iyadoo ugu dambeyn heshay goolka guusha daqiiqadii dabcan ugu horeysaba waxaa goolka Liverpool u dhaliyay xidiga lagu magacaabo Jorginho Wijnaldum oo kulanka ka dhigay dabcan 1 gool iyo eber waa daqiiqadii 9aad balse 3 daqiiqo kadib markii ay dabcan ciyaartu socotay 12 minute waxa goolka barbaraha kooxda lagu magacaabo West Ham u dhaliyay laacibka lagu magacaabo Oscar Diop qaybta koowaad ayaana sidaas lagu kala nastay markii dib la isugu soo laabtay gaar ahaan daqiiqadii 54aad kooxda Hamriska ayaa hogaanka markaan la wareegtay waxaana goolka u dhaliyay xidiga lagu magacaabo Pablo Fernandes wiilasha David Moyes ayaa markaan u muuqday dabcan kuwa dheesha gool ka gaari kara balse taasi ma aysan dhicin oo daqiiqadii 68aad laacibka reer Masar ee Mohamed Salah ayaa kulanka ka dhigay barbaro 2 gool iyo 2 ahi waxa waliba isbedeleen isla markaana ay cadaatay in Reds qarka ay u saaran tahay 3 sano kadib ku guuleysiga horyaalka Ingiriiska markii uu daqiiqadii 81aad uu goolka guusha ugu dambeyn u keenay wiilka reer Senegal ee Sadio Mane markii uu caawin ka helay Arnold oo loo doortay xidiga garoonka kulankan waxa uu noqday natiijo 2 gool iyo 3 ahi oo ay hogaanka mar kale dabcan la wareegeen kooxda Redska. This is Gomez. Oh, it might come for Alexander Arnold. It will, and in by Sadio Mane.
guud ahaan ciyaarta ayaan kusoo idlaatay 2 gool iyo 3 oo ay guusha ku raacday kooxda lagu magacaabo Liverpool oo sidaasi ku heshay natiijada 3 dhibic ee garoonka waxyaabihii laga bartay ciyaartan haddii aan eegno tababaraha kooxda West Ham David Moyes ayaa guul la'aan ah kulamada banaanka marka uu la ciyaarayo kooxda Liverpool dhammaan tartamada waxa uu ku guul dareystay isku day 16 jeer oo uu ku wajahay banaanka 7 barbar ayuu galay 9na waa uu guul dareystay ninkan waxa uu khasaaray 4 ciyaar ee la soo dhaafay uu banaanka kula soo ciyaaray ama uu ku ciyaaray isaga oo tababaro u ah kooxda Manchester United Sunderland iyo sidoo kale naadiga lagu magacaabo West Ham United Liverpool ayaa guuleysatay 21 ciyaarood oo ay gurigooda ku ciyaareen horyaalka Premier League kulmadii ugu dambeeyay waxay dabcan rikoorkaasi ay la sinteen kulamo xiriir ah oo ay gurigooda ku ciyaarayaan markaas oo ay sameeyeen intii u dhaxaysay bilihii January iyo sidoo kale December 1972 xilligaasi oo tababar u ahaa ninka lagu magacaabo Bill Shankly waxay dhaliyeen 14 gool madaxa kulamada Premier League xilli ciyaareedkan waa in ka badan kooxaha kale ee horyaalka BL ka qayb galaya kaliya Cesc Fabregas oo jiray 20 sano iyo sidoo kale 134 maalin iyo Wayne Rooney 21 sano iyo sidoo kale 63 maalin ayaa ku gaaray 25 caawin oo Premier League ah marka la qiimeeyo daayarnimada waxaa sidoo kale ku xiga oo xidiga saddexaad noqday ninka lagu magacaabo Arnold oo 21 sano iyo 140 maalin ku gaaray in uu dabcan caabiyo 25 gool tan iyo markii uu kulankiisii ugu horeysay u ciyaaray kooxda West Ham bishii Febraayo 2017 ninka lagu magacaabo Roberto Snodgrass ayaa diiwaan geliyay 12 caabin oo horyaalka BL-ka ah isagoo u ciyaaraya kooxda West Ham waana in ka badan xidigaha kale Mohamed Salah ayaa ku lug yeeshay 8 gool 6 kulan oo u ciyaaray horyaalka BL-ka isagoo oo wajahaya kooxda West Ham 6 gool ayuu dhaliyay xidigan 2 caabin ayuu sameeyay tan iyo markii uu ka soo muuqday bishii Agosto 2014 horyaalka BL-ka Robertson ayaa diiwaan gashaday 27 caabin tartankan waana in ka badan xidigaha kale ee daafaca dhammaan taariikhda xilligaasi tan iyo markii dabcan Sadio Mane ayaa ku lug yeeshay 8 gool 6diisii kulan ee ugu dambeysay horyaalka BL-ka oo uu wajahay kooxda West Ham 5 gool ayuu dhaliyay 3na waa uu caabiyay xidigan waxaana uu gool dhaliyay mid kasta oo kamid ah 4 ciyaar ee la soo dhaafay oo uu wajahay kooxda lagu magacaabo Hammers Liverpool waxay u safri doontaa sabtida soo aadan kooxda Watford 29 bisha Febraayo halka kooxda West Hamna ay gurigooda ku qaabili doonaan naadiga lagu magacaabo Southampton isla maalintaasi Liverpool haddii kulamada soo aadan ama afartooda kulan ee xiga waxa ay kala yihiin Watford iyo Liverpool sabti 29 Febraayo Liverpool iyo Bournemouth sabti sidoo kale 7 March Liverpool waxay sidoo kale la ciyaari doontaa kooxda Everton maalin Isniin ah oo ay taariikhda ku beegan tahay 16 March saddexdaasi kulan haddii ay badiso kulankan u dhiman dhici doona 21 March oo ay ku beegan tahay maalin sabti ah isla markaana ay wajihi doonaan Crystal Palace waxaa loo caleema saari doonaa ku guuleysiga horyaalka Premier League taasi oo ka dhigan in 30 sano kadib ay kooxda Liverpool ay ku guuleysan karto horyaalka Premier League sidoo kalena rikoor weyn ay halkaasi ku sameyn doonaan maadaama ay adag tahay in bisha March iyada oo lagu guda jiro lagu guuleysto horyaalka Premier League oo ay ka dhiman tahay 2 bilood oo ah bilaha May April sheekooyinkaas halkaas aynu kaga talaabno goordhow waxaad maqli doontaan ciyaaraha Champions League waa tahay 8 sano kadib kooxaha Chelsea iyo sidoo kale naadiga Bayern Munich ayaa caawa ciyaari doona kulan ka dhici doona garoonka Stamford Bridge ee galbeedka magaalada London kooxahan 2012 ayay ciyaareen kulan ka tirsan finalka Champions League xilligaasi oo uu atoora ka ahaa ninka lagu magacaabo Didier Drogba oo kulan muhiim u ahaa kooxda Blues isla markaana ka saaciday in markii ugu horeysay ay ku guuleystaan tartanka xiisaha badan ee Champions League xilligaasi oo tababaro u ahaa kooxda Chelsea ninka lagu magacaabo dabcan tababarihii reer Talyaani
wararka sheekooyinkan ka cusub ama dimitay ay xilligaasi tababaro ah kooxda lagu magacaabo Chelsea wararka kooxahan ka cusub haddii aan eego kooxda Chelsea xidigeeda N'Golo Kante ayaa ciyaartan laga yaabaa in uu seego lugta koowaad ee wareegga 16 tartanka Champions League oo ay wajahayaan Bayern Munchen xidiga qadka dhexe ayaa la rajeynayaa in gabi ahaanba uu seego 3 isbuuc ee soo aadan kadib dhaawac soo gaaray laacibka reer Faransa Christian Pulisic Petro iyo sidoo kale wadahay ay gabi ahaanba u badan tahay in aysan ciyaareen kulankan laakiin ninka lagu magacaabo Robben Loftus-Cheek ayaa kulankan u noqon kara mid fay ah kadib markii uu dib ugu soo laabtay ama keedka ku soo bilaabday ciyaartii ay sabtidii wajaheen kooxda Espresso Bayern daaficeeda ninka lagu magacaabo Sol ayaa ciyaartan kaga maqan dhan dhaawac ka soo gaaray jilibka halka weeraryahanka lagu magacaabo Evan Perisic oo ciyaartan u seegi doono dhaawac soo gaaray qadka dhexe qaranka Isbaanishka Javi Martinez ayaa suuragal ay tahay in uu ciyaartan ku soo laabto kadib markii uu xidigan seegay 6 ciyaar ee la soo dhaafay xanuun soo gaaray awadeed Chelsea tababaraheeda Frank Lampard ayaa yiri marnaba shaki kama qaba wax ku saabsan ciyaartooyda dayarta ee kulankan ku soo bilaaban kara waan aaminsanahay dhammaan ciyaartooyda waxay kuwaasi oo qayb ka ah safka kooxda Chelsea xilli ciyaareedkan ayuu yiri Lampard waxay dabcan ay sameeyeen wax aad u wanaagsan xaqiiqdii waxaan aaminsanahay in ay si wanaagsan u ciyaareen kulankan ama kulamada soo aadanna aan ka qabin wax shaki ah xaqiiqda ama waxyaabaha laga soo calaamadeeyay ama ka dhici kara kulankan waxaa ka mid ah kooxaha Chelsea iyo Bayern Munchen markii ugu dambeysay oo ay soo jaheen waxay ahayd finalka Champions League 2012 markaas oo ay Chelsea gool kulaad ku badisay 4-3 ciyaar ka dhacday Allianz Arena afartii ciyaar ee la soo dhaafay dhammaan tartamada ay u dhaxeeyay kooxaha Bayern Munchen iyo Chelsea waxay iska dhaliyeen 17 gool taasi oo ka dhigan in kulankiiba ay iska dhalinayeen 4.25 average ahaan ama celcelis kooxda Chelsea ayaa gaartay wareegga knock-out-ka Champions League 14 ka mid ah 17 ciyaarood ama xilli ciyaareed kaliya kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Bayern Munchen ayaa kaga sareeya ka soo muuqashada marxaladda knock-out-ka Chelsea ayaa dabcan u muuqatay mid ka hareysay afartii ciyaarood ee la soo dhaafay Champions laba ka mid ah wareegga knock-out-ka Champions League waxayna ku dabcan isku dayeen 8 jeer afarna way ku guuldareysteen kooxda lagu magacaabo Chelsea in ay guuleystaan afar barbara ay galeen afarna waa laga adkaanay kooxda lagu magacaabo Chelsea wareegga knock-out-ka Chelsea ayaa guuleysatay mid ka mid ah 6 ciyaar ee la soo dhaafay Champions League oo ay ku ciyaareen garoonka Stamford Bridge afar barbara ay galeen halna waa laga guuldareystay dabcan waa waxay la kulmeen guul darro oo wala guuleystay natiijo ay u baxeen kooxda lagu magacaabo Lille ciyaar ku soo dhamaatay 2 gool iyo hal bishii December kooxda Chelsea iyo sidoo kale Bayern Munchen ayaa iska dhalinayay goolal badan meel ka baxsan xirada ganaaxa sanadkan ama dabcan gool ka dhalinayaan iraahdo meel ka baxsan diilanta ganaaxa Champions League iyagoon labadan koox wadaaga 5 gool marxaladda group stage-ka ama heerka gurubyada tabaraha kooxda Chelsea Frank Lampard ayaa dhaliyay 3 gool 4 ciyaarood oo uu ku wajahay Champions League kooxda lagu magacaabo Bayern Munchen waaydiisii ciyaartoy tan iyo markii guuldaro ay ka soo gaartay 2012 kooxda Chelsea finalka Champions League waa kooxda Bayern Munchen dabcan marka ay wajahayaan kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska waa ay reebayeen afar ka mid ah shantii ciyaarood ee la soo dhaafay oo ay gurigooda ay sidoo kaleba meel ahaanba ay kula ciyaareen ama meel ka baxsan gurigooda tartanka xiisaha badan ee Champions League Bayern Munchen ayaa gaartay Champions League heerka knock-out-ka 12 jeer oo xiriir ah kaliya Real Madrid oo 23 iyo sidoo kale Barcelona 16 sano oo xiriir ah gaarayay Bayern Munchen ayaa aroostay dhibco badan oo waliba ay ku darsatay goal difference ama farqiga goolasha waxay haystaan kooxda lagu magacaabo Bayern Munchen 19 gool oo nadiif ah marxaladda group stage-ka ee xilli ciyaareedkan Champions League waana mid ka mid ah wax qabadkooda ugu fiican ah oo ay sameeyeen marka loo eego marxaladda
guruubyada tartanka Champions League. kooxda Bayern Munchen weeraryahankeeda ninka lagu magacaabo Roberto Lewandowski ayaa dhaliyay 10 gool xilli ciyaareedkan Champions League waan xidiga labaad sidaasi waan markii labaad uu sidaasi sameeyay ninka reer Poland tan iyo ama xilligiisii kooxda lagu magacaabo Borussia Dortmund 2012-2013 si kastaba waxa uu ku guul dareystay in uu gool helo 597 daqiiqo marxaladda dabcan heerka marxaladda knock out-ka tartanka Champions League. ciyaartan waxay ka dhici doontaa garoonka lagu magacaabo Stamford Bridge ee magaalada London gaar ahaan galbeedkeeda waxayna soo gali doontaa saacadu marka ay tahay 11 habeenimo. dhanka kale kooxda Barcelona waxay u safri doontaa magaalada Napoli. wararka kooxahan ka cusub hadii aan dulmar ku sameeyo xidiga kooxda Napoli ninka lagu magacaabo Claudio Koulibaly sidoo kale Fernando Llorente ayaa labadooduba kulankan si kara suurgal ma ahna leeyahay in ay ciyaartan ay ku soo bilaabdaan inkastoo shakiyo badan ay jiraan. daafaca kooxda Napoli ninka lagu magacaabo Kevin Malcuit ayaa gabi ahaanba ciyaartan waqti dheer oo ganaax ama dabcan dhaabac ah kaga maqan weeraryahanka kooxda Barcelona ninka lagu magacaabo Luis Suarez oo kamid ah 5 ciyaartooy oo ka maqan kooxda Barcelona. sidoo kale waxaa dabcan lama taanaysan xidigaha kale ah Ousmane Dembele, Jordi Alba, Sergio Roberto. gabi ahaanba ciyaartooydan waxaa la aaminsan yahay in ay ka maqnaan karaan ciyaartan. weeraryahanka cusub ee kooxda Barcelona Martin Braithwaite ayaa dabcan looma diiwaan gelin doono in uu ciyaaro kulankan sida ay dabcan lagu sheegay warbixinta ka soo baxday kooxda Barcelona iyo UEFA. shikooyinka dabcan laga dhahay ciyaartan hadii aan dulmar ku sameeyo tababaraha kooxda Napoli Gennaro Gattuso ayaa ku qeexay weeraryahanka Barcelona Lionel Messi mid aad u weyn tayadiisana ay tahay mid sareysa koox ciyaartan isagoona dabcan la meel dhigay halyeeyga kooxda Napoli ninka lagu magacaabo Diego Maradona. waxa uu sameynayaa wax wanaagsan waa sida PlayStation-ka oo kale ayuu hadalkiisa yiri ninka lagu magacaabo Gennaro Gattuso. marnaba ma qeexi kartid waxyaabaha uu sameynayo. waan ogahay in ninka lagu magacaabo Maradona uu la mid yahay maanta waxaan arkaynaa champion uu ahaa ninka lagu magacaabo Maradona. maanta waxaan u jeednaa waxyaabaha uu sameynayo Messi kuwaasi oo uu sameyn jiray Diego Maradona. sidoo kale waxaa ka hadlay Messi sidoo kale isbarbardhigga ninka lagu magacaabo Maradona weeraryahanka kooxda Napoli ninka lagu magacaabo Lorenzo Insigne waxa uu yiri dabcan markaad isbarbardhig ku sameynayso Maradona kaasi oo kooxda reer Talyaani wax u qabtay kula guuleystay horyaalka Serie A 1990 suurgal ma noqonayso ayuu hadalkiisa yiri ama uu dabcan raaciyay Messi waa xidiga ugu wanaagsan dunida idil waqti xaadirkan ayuu yiri ninka lagu magacaabo Insigne. laakiin xaqiiqdii Napoli ahaan oo aan ka tirsanahay Maradona wax waliba ayuu yahay mana doonayo in aan isaga la meel dhigo Messi. Maradona waa secret ama mid muxuu ahaa u qarsoon kooxda lagu magacaabo nadiga lagu magacaabo Napoli waana sirta guusha marka loo eego kooxda reer Talyaani. Napoli waxay dib ugu soo laabatay waayo wanaagsan kadib markii ay gashay isbuuciyo marxalad ama isbuuciyo aad u hooseeya oo ay ku bilaabdeen horyaalka Serie A taasi oo sababtay in Carlo Ancelotti gabi ahaanba kooxda laga ceeriyo. waxay guuleysteen kooxda Napoli 3 ciyaar ee soo dhaafay oo uu tabar u ahaa ninka lagu magacaabo Gennaro Gattuso. ciyaartanna waxay wajihi doonaan kooxda lagu magacaabo Barcelona. mar uu Gattuso ka hadlayay waxa uu yiri waxaan doonayaa in aan arko kooxdeeda oo u dagaalamaysa si wanaagsan. waxaan u baahanahay inaan ka adkaado kooxda Barcelona. waxyaabaha xaqiiqda ee kulankan hadii aan markaan dulmar ku sameeyo tani waxay noqonaysaa markii ugu horeysay oo ay kooxahan ku tartamayaan tartankan. labada tababare Gattuso iyo sidoo kale Setien oo Barcelona leeliya oo markoodii ugu horeysay Champions League kulan ka tirsan ay tababaro noqonayaan. Napoli ayaa gaartay Champions League wareega knock out-ka markii saddexaad 6 kulan ama 6 Champions League ee soo dhaafay marnaba dabcan ma aysan dhaafin wareega 16 sida dabcan la aaminsan yahay.
kooxda lagu magacaabo Napoli ayaa dabcan waxay ka reebaysay ama dabcan ay ka hareysay laba ka mid ah ama labadii ciyaar ee European League sidoo kale Champions League oo ay wajaheen kooxaha ka dhisan Isbaanishka labaduba waxaa reebtay kooxda lagu magacaabo Real Madrid. Napoli ayaa ku guuldareysatay in ay gool dhaliso 20 ciyaar ee la soo dhaafay Champions League oo ay ku ciyaareen garoonka lagu magacaabo San Paolo. kooxda lagu magacaabo Napoli ayaa dabcan dhalisay 5 gool oo penalty ama gool kulaad xil ciyaareedkan marxaladda guruubyada dabcan waana rekoor aad u wanaagsan marka loo eego gool dhalinta kooxda lagu magacaabo Napoli. xidiga lagu magacaabo Dries Martinez ayaa ku lug yeeshay 50% goolasha kooxda Napoli ay ka dhalisay Champions League tan iyo 2016-2017 markaasi oo 5 gool dhaliyay 15 gool aan iraahdo sidoo kale caawinaad badan oo 6 uu sameeyay. laacibkan ayaana ka dhigan tahay in 21 gool uu dhaliyay ay dabcan 42 gool ay dhalisay kooxda Napoli oo isaga uu dhaliyay 21 gool. kooxda Barcelona kulamada banaanka ama kulamadeeda banaanka marka ay wajahayaan kooxaha ka dhisan Talyaaniga Champions League way guuleysanayeen wareega knock-out-ka April 2006 markaas oo ay garaaceen kooxda lagu magacaabo AC Milan 1 gool eber xilligaasna waxa uu ciyaaray kooxda lagu magacaabo AC Milan Gennaro Gattuso. guushooda ugu dambeysay ay ka gaareen Talyaaniga waxay ahayd 2006 xilligaas oo ay 1 gool eber ay kaga gaareen kooxda lagu magacaabo AC Milan. Barcelona ayaa dabcan sameeynayay horumar badan marxaladda knock-out-ka 12 sano ee soo dhaafay waana mid ka mid ah heerarkooda ugu wanaagsanaa taariikh ahaan kooxda Barcelona ayaa dabcan guuleysatay hal jeer oo ka mid ah 6 ciyaar ee la soo dhaafay oo ay banaanka ku soo ciyaareen marxaladda knock-out-ka laba barbara ay galanashana waa ay guuldareysteen runtii guusha ay gaareen waxay ahayd ciyaar ay bishii April u baxeen naadiga Manchester United 1 gool eber ku soo dhamaaday 2019 ay ahayd runtii laacibka lagu magacaabo Lionel Messi ayaa dabcan dhaliyay laba ka mid ah 5 ciyaar ee la soo dhaafay ama 2 gool dhaliyay wada ahaan 5 ciyaar ee la soo dhaafay Champions League uu wajahay ama uu ka ciyaaray tartanka wareega guruubyada tartanka Champions League waana heerkiisii ugu xumaa mucjisada uu wajahayo 10 sano gudaheed. ciyaartan dabcan waxay ka dhici doontaa magaalada Napoli waxayna soo gali doontaa 11 habeenimo ama 5 saac habeenimo. tahay saaxiibayaal gabagabada barnaamijkana waanu ku sii dhownahay sheekooyinka kale haddii aan markaan qaarkood aan soo koobo Messi waxa uu socdaa kooxda lagu magacaabo Napoli wax walbana kubadda cagta way ka dhici karaan sidaas waxa aaminsan Gerard Piqué ayaa aaminsan in suuragal ay tahay Lionel Messi in hal maalin uu ciyaaro kooxda lagu magacaabo Napoli balse daafaca Barcelona ayaa jeclaan lahaa in uu kooxda Barcelona uu gabi ahaanba ku soo gabagabeeyo waayihiisa kubadda cagta Lionel Messi iyo Barcelona waxay wajihi doonaan naadiga Napoli ciyaar ka dhici doonta garoonka lagu magacaabo San Paolo caawa lugta koowaad wareega 16 Champions League iyadoona isbarbardhig badan lagu sameeyay Messi sidoo kale Maradona koor kulanka caawa mar la weydiiyay Messi haddii ay suuragal tahay in uu u ciyaaro kooxda lagu magacaabo Napoli Messi Piqué ayaa u sheegay warbaahinta marnaba ma dhihi kartid maya iyadoo la joogo kubadda cagta laakiin way suuragal weyn noqon kartaa intaasi ay dhacdo isaga weydiiya haddii mustaqbalkiisa isaga qeexi kara ayuu hadalkiisa sii raaciyay laakiin waxaan jeclaan lahaa in uu kubadda cagta ku soo gabagabeeyo kooxda Barcelona intaas wax ka badan kuma sheegi karo ayuu ugu dambeyn sheegay ninka lagu magacaabo Piqué oo si maldahan u sheegay in Messi uu maalin u ciyaari karo kooxda lagu magacaabo Napoli. Messi ayaa dhaliyay 23 gool 9 iyo 28 ciyaarood dhammaan tartamada kooxda Barcelona xilli ciyaareedkan. dhanka kale Raheem Sterling ayaa ka dhawaajiyay kooxda ay taageerto gabadhiisa yar dabcan wareysi dheer oo uu siiyay majalada AS laacibka lagu magacaabo Raheem Sterling oo wax badan uu ka sheegay haddii aan soo koobno waxyaabo badan oo ay ka mid tahay dabcan
cunsuriyadda ka jirta kubadda cagta uu ku sheegay wax badan oo ku soo laabanaya inay tahay taasna ay suuragal noqon doonto in ama ay wanaagsanaa lahayd in dabcan gebi ahaanba la joojiyo sidoo kale waxa uu ka hadlay gabadhiisa yar waxa uu sheegay in gabadhiisa ay dabcan taageerto kooxda lagu magacaabo Liverpool maruu ka hadlay waxa uu yiri gabadheeda shakhsiyadeeda dabcan waa tayda oo kale waxay jeceshahay waliba ay aad u taageertaa Mohamed Salah mararka qaarna dabcan inaga ama waxay isku daydaa in ay iga xanaajiso way og tahay fiiltanka u dhaxeeya kooxaha Liverpool sidoo kale naadiga lagu magacaabo Manchester City oo aan aniga u ciyaaro haddii jeer waxay qaadaa heesaha kooxda Liverpool waxayna isku daydaa in ay iga xanaajiso taasna waa shakhsiyadeeda ay ugu dambeyn sheegay ninka lagu magacaabo Raheem Sterling oo wareysi dheer siiyay majalada AS ee Isbaanishka ka soo baxda dhanka kale waxa soo baxaya dabcan soo baxaya xidig markaan la dhihi karo loolan ama tartan uu gelin karaa duufaanta Borussia Dortmund ninka lagu magacaabo Haaland weeryaankan waxaa lagu magacaabo Jonathan David kaasi oo ka ciyaara horyaalka dalka Belgiumka waana mid ka mid ah ciyaartooyda ugu saameynta badan ee goolinta qaaradda Yurub waqti xaadirkan laacibkan waxa uu 3 gool ka dhaliyay kooxda lagu magacaabo Genk axadii 20 jir Canadian ah weeyaan 18 gool ayuu dhaliyay wadar ahaan 25 ciyaarood oo sanadkan ama xil ciyaareedkan uu ciyaaray waana mid ka mid ah xidigaha ugu saameynta badan 12 gool ayuu ku hogaaminaya ama uu leeyahay goolinta tartanka Belgium ama tartanka Belgiumka runtii laacibkan waxa la leeyahay waa bedelka saxda ah ama dabcan ninka saameyn kara isla markaan loolan gelin kara ninka lagu magacaabo Haaland laacibkan kooxo badan ayaana daneynaya xil ciyaareedkan waxay suuragal tahay marka uu dhamaado in uu ka soo muuqdo kooxaha ugu tunka weyn qaaradda Yurub dhanka kale Paul Pogba waxa uu qirtay in Liverpool aan sanadkan laga xigin horyaalka BL-ka Paul Pogba ayaa u qiray Liverpool in sanadkan ay tahay kooxda ku guuleysan karta horyaalka Premier League isaga oo u warramay ESPN ayuu yiri waxay ka horeeyaan koox waliba ma aysan guuldareysan hal kulan oo horyaalka xil ciyaareedkan taasi oo ka dhigan in ay gacanta ku haystaan koobka Premier League haddii aan ahay xidig Manchester United ah waxaan ogahay in uu xafiltan nagala dhaxeeyo iyaga ma doonayno in ay iyagu koob ku guuleystaan sidoo kale dabcan ma doonayno in koox inaga ka baxsan ama naga baxsan ay koob hanato laakiin kubadda cagta waa jaceyl iyo inaad xushmayso ciyaaryahanada kooxda lidka ku ah waxaan dhihi karaa waxay maanta u qalmaan xanashada horyaalka waxay sameeyaan wax waliba sanadkii la soo dhaafayna waxay ku guuleysteen Champions League oo ay dabcan ku soo qaadeen magaalada Madrid sanadkan waxay suuragal tahay in ay saameyn badan ku yeeshaan Champions League laakiin boqolkiiba boqol waxa uu aaminsan yahay in Liverpool ay ku guuleystay horyaalka Premier League dhanka kale Sajon ama laacibka lagu magacaabo Jadon Sancho warar soo baxay waxay sheegayaan in laacibkan uu iska sii joogi doono kooxda lagu magacaabo Borussia Dortmund laacibkan waxaa la xiriirinayay in uu ka dhaqaaqi karo kooxda Dortmund waa 19 jir waxaa si weyn loo xiriirinayay in uu dhaqaaqayo horyaalka Premier League kadib markii uu Bundesliga ku soo bandhigay wax qabad aad loo mahadiyay laacibkan waxa uu ku mahadsan yahay ama dabcan uu ku faraxsan yahay raahdo kooxda lagu magacaabo Dortmund sida uu wargeyska lagu magacaabo Rahar waa dabcan waa da'yar 19 jir ah isla markaana qandaraaskiisa uu dhacayo 2022ka ugu yaraan waxa uu ciyaari karaa la leeyahay ololaha 2020 kooxaha la xiriirinaya waxaa ka mid ah Liverpool Manchester City United-ka iyo naadiga lagu magacaabo Chelsea oo dhammaantood xiisaanaya laacibkan tababaraha Barcelona waxa uu sheegay in ciyaartooydiisa ay weli la nool yihiin jabkii Champions League ee ka soo gaaray kooxaha Roma iyo Liverpool waxay wajihi doontaa kulanka caawa Napoli ee tartanka tirsan Champions kooxda Barcelona aan yiraahdo waxay wajihi doontaa Napoli kulanka tirsan Champions League wareegga koowaad 16ka sanadkii soo dhaafay iyo ama labadii sano soo dhaafayna marxalad aad u hooseysa ay ugu soo hareen tartanka Champions League 4 gool iyo gool 2018 kooxda lagu magacaabo iyagoo ku hogaaminaya kulan waxay wajaheen kooxda lagu magacaabo Roma laakiin waa laga ciribtiray tartankaasi sidoo kale 3 gool iyo eber iyaga oo Liverpool kaga hogaaminaya sanadkii la soo dhaafayna gabi ahaan waa laga saaray tartanka taasi oo ka dhigan in sanadkii la soo dhaafay ay ahaayeen kuwa aad u hooseeya tababaraha wada ninka lagu magacaabo Satan waxa uu qirtay in ciyaartooydiisa ay la nool yihiin murugadaasi ka soo gaartay Champions League mar uu hadlayay waxa uu yiri
runtii xaqiiqatan waxay ahaayeen wax la soo dhaafay kulamadii aan wajahnay weliba guuldarooyinka ahaa Liverpool iyo sidoo kale nadiga Roma xaqiiqdii waxay ku jirtaa maskaxdeena ayuu yiri ninka lagu magacaabo Satan marnaba suuragal ma ahan in la iloobo balse waxay ahayd khibrad aan qaadanay kulamada adag dabcan waxaan aaminsanahay in kooxda hadda ay tahay mid aad u wanaagsan ciyaartooyda iyo kooxdaba hadda kalsoonidooda aad ay u wanaagsan tahay waxaan sii wadi doonaa kulamada dynamiga ama cajiibka ah ee sanadkan aynu ku guda jirno waxaan sii joogteen doonaa waayahayna wanaagsan ayuu sheegay ninka leeliya kooxda lagu magacaabo Barcelona ugu dambeyn Bernardo Silva waxa uu qirtay in uu jeclaan lahaa ka garab ciyaarista Lionel Messi laacibkan oo hadda ka tirsan ama u ciyaaro xulka qaranka Portugal isla markaana uu qayb kala yahay ninka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo waxa uu jeclaan lahaa fursad uu ku soo dhaweynayo laacibka lagu magacaabo Lionel Messi ama kooxdiisa Manchester City xidiga qadka dhexe ee kubad sameeyaha u ah Manchester City waxaa la aaminsan yahay in uu u dhaqaaqayo kooxda lagu magacaabo Barcelona waxay ahaayeen xanta ugu dambeysay ee maalmihii la soo dhaafay kadib markii Manchester City 2 sano laga ganaaxay Champions League mar uu waramiyay sar Catalonia waxa uu yiri ama la weydiiyay hadii uu jeclaan lahaa inuu ka garab ciyaaro Lionel Messi waxa uu yiri dabcan waa suuragal waxaan la ciyaaray Cristiano Ronaldo aan hadda la ciyaaraa tartanka ama xulka qaranka Portugal waan jeclaan lahaa inaan ka garab ciyaaro Lionel Messi tani waxay ii noqon lahayd wax aad u wanaagsan taariikh ahaanna waa wax macquul noqon lahayd farxadna waan dareemi lahaa in aan ka garab ciyaaro labadooda xidig Messi sidoo kale Cristiano Ronaldo City ama Barcelona waan soo dhaweyn lahaa inaan ka garab ciyaaro Lionel Messi guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka xulka ciyaaraha Maxamed Xasan ayaa idin waramayay hana Maxamed Maxamuud oo ay soo saartay tim jilacna oo farsameynay nabadgelyo saaxiibayaal